education platform. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع عبد القادر يوسف عثمان iyo duruustii tarbiyada oo noo socotay waxaynu fasalka toddobaad ayaynu joognay chapter 2 ama waxaynu joognay alwaxda athaniya waxdada labaad darsi saadis ayaan gelaynaa. waxaan soo dhamaynay darsigii shanaad ee ku saabsanaa sulxul xudaybiya. الدرس السادس wuxuu ku saabsan yahay macnaa cibaadat illaah, macnaha ay leedahay cibaadada ilaahay. marka cibaado horena waan usoo qaadanay, haddana cibaado waxaa weeye ilaahay awaamirtiisoo la qaato iyo wuxuu kaa reebay oo laga haro. khalaqa allahu tacaala alinsaan, ilaahay wuxuu abuuray insaanka, wa axsana khalqahu, abuuritaankiisana wuu qurxiyey. wamayazahu wuxuu ilaahay insaanka uga soocay dadka kale ama xayawaanada kale bilcaqli, caqliga, can baqiyati almakhluuqaat, fiiri xayawaanada kaleetoo dhan. wasakharahu ilaahay wuxuu u fududeeyey likhidmatihi, xayawaanada kale wuxuu u fududeeyey likhidmatihi, in makhluuqaadka kale isaga ay u shaqeeyaan. wadaalika taasina waxaa loogu talagalay litaxqiiqi insaanku inuu xaqiijiyo oo uu gaaro gaayatin shariifa, yacni ujeedo weyn oo sharaf badan oo ugu dambeyn uu gaaro. wa hiya alcibaada, ujeedada loogu talagalay insaanku waa maxay marka? waa cibaada. wa cimaaratu lardi, iyo dhulka inuu camiro. marka insaanka maxaa laga rabaa? laba shay oo keliya ayaa ilaahay ugu talagalay oo muhiim ah: alcibaada wa cimaaratu lardi. يعني إلهي سبحانه وتعالى waxaa lagu sakray adiga buuraha iyo dhulka iyo cirka si aad u samaysid cibaado iyo cimaaratu lardi. qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu yidhi marka: wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun, ma abuurin aniga jinni iyo insi ilaa waxaan u abuuray inay i caabudaan. maa uriidu minhum, aniga iyaga kama rabo min risqin, arsaaqad kama rabo inay aniga wax isiiyaan. wamaa uriidu mana rabo an yudcimuuni, inay aniga wax iquudiyaan. ina allaha ilaahay huwa isaga alrasaaqu, allaha wax arsaaqa ah oo arsaaq badane ah, dulquwati almatiini, awood adagna ilaahay waa lehi subxaanahu wa tacaala, oo cid ka awood badan haba yaraatee ayna jirin. fa min khilaali alcibaada, marka cibaadadaas gudaheeda markuu qofku cibaado samaynayo ilaahayna uu abuuray, ayaa yatawaasalu linsaanu, qofku wuxuu xiriir la yeelanayaa maca khaaliqihi, rabbigiisa caza, allaha guulaysta ee wajalla ee weyn, duuna wujuudi wasaa'id, iyadoon la helin ama ayna jirin wax u dhexeey. markuu qofku ilaahay caabudayo toos buu xiriir ula yeelanayaa. mafhuumu alcibaada, cibaadada macnaheeda waa maxay? marka waa lagu cadaynayaa. alcibaadatu hiya, cibaadadu waxaa weeye marka hadhow mafhuum alcibaada sheeg marka lagu dhaho yaad halkaas soo qaadan. marka alcibaadatu hiya, cibaadadu waxaa weeye kulu daacatin yuadiiha almuslim, daaco kasta oo qofka muslimka uu gudanayo khuduucan wa shukran lilaahi, isagoo u khuduucaya ama isu duleynaya ilaahi subxaanahu wa tacaala, uguna shukrinaya nimcooyinkiisa. taa marka waa cibaadada wax lagu sheegay, cibaadada lagu sheegay. wa qiila waxaa kaloo la yidhi alcibaadada waxaa la yidhi waxaa weeye kula maa yuxibuhu allahu wa yardaahu, wax alla waxa ilaahay uu jecel yahay oo min alaqwaali walafcaali, hadalla iyo ficilo, aldaahirati kuwa muuqda iyo walbaadinati kuwa qarsoon labadaba. marka wax alla wixii ilaahay uu jecel yahay oo hadal lagu hadlo ama ficil la sameeyo. marka labada tacriifka koowaad, kaas qeexid koowaad weeye, kana qeexid labaad weeye. haddii cibaadada la raba in la qeexo, labadaba waa la isticmaali karaa. aad iyo aad. aqsaamu alcibaada, marka qeybaha ay cibaadadu u kala baxdo, hadda waxaan gelaynaa qeybaha cibaada. falcibaadatu tanqasimu ilaa aqsaamin mutacadida, cibaadada marka waxay u qeybsantaa qeybo kala duwan. fa hiya cibaadada bixasabi alcumuumi waalkhusuus, marka loo fiiriyo caam, mid guud iyo khaas ah, tanqasimu waxay u kala baxdaa ilaa cibaadatin caama, cibaado guud,
وعبادة خاصة هي عبادة قارة. عبادة مركا نحن عام يا خاص. وامحي مركا مدة عام كأه. فالعبادة العامة عبادة عام كأه وحوية كل عمل نافع عمل كستو أو أنفع يقفك أو يؤديه المسلم قفك مسلم كأو أجدنايو مخلصا لله تعالى يسوع إلهي لا عضوه أو وحكة لأجدرين هاو حليل هذا العبادة العامة وحكستو أتسمين يسوع إلهي درتي أولي جيد عبادة الخاصة محين هنا مركة والعبادة الخاصة وامحي هي كل عبادة مفروضة عبادة كستو الواجبية من صلاة هذه صلاة أهان لهيد وصوم هذا صوم أهان لهيد وزكاة وحج ونحوها ماشي المركة محيو كل دويهن عام يا خاص محيو كل دويهن عام وحواي هدي الدرس كاغا حقيس دورتو هداد ilmahaaga wax siiso hadaad masaakiin u naxariisato hadaad wax walba ilaahay dirti u sameynayso cibaado caam ah khaaska laakiin waxa way tii ilaahay uu ku amray uu ku yiri samee ayaa waxa la yiraahdaa cibaada khaasa وبحسب المال وغيره taas marka waa marka cibaadada loo fiiriyo guud ahaan وبحسب المال وغيره hadii loo fiiriyo maalka iyo maalka waxaan maalka ahayn تنقسم العبادة وحي قيبسنتها عبادته إلى عبادة بدنية عبادة أو جركة وعبادة مالية عبادة أو مالكة أو مشتركة بينهما ايش او فير سمركه عبادة حق جركة لغا سميو عبادة حق مالك لغا سميو عبادة مالنا كجرو جركنا كجرو maxaa la dhahaa marka badaniya falcibaadatu albadaniya cibaadada jirka marka loo imaado allatii tactamidu cala alqiyaam waa midda aad ku tiirsanaysa markaad u kacayso bixarakaatin makhsuusatin xarakooyin ama dhaqdhaqaaqyo gaar ah filbadani jirka midla salaati wasiyaam sida salaada iyo soonka kale salaada markaad samaynayso waa aragtay jirkaaga shaqaynaya soomkana waa adiga wax ma cunaysid wax ma cabaysid waa kaas markaas wixii cibaado ah oo jirka laga dhaqdhaqsiinaya jirka uu dhaqdhaqaajinaya ama jirka cunto siinaya ama jirka cunto u diidaya waxa la yiraahdaa cibaada badaniya maxaa soo hartay marka tan ku xigta cibaada badaniya markaan ka tagno alcibaadatu almaaliya midii xagga maalka ah wahiya zakaa'ida waa zakada laano maalkaad ka bixinaysa iyada nooca saddexaad muxuu noqonaa marka alcibaada almushtaraka cibaadada ka dhaxaysa بين المالية والبدنية مالنا وكجرا جرنا وكجرا محا كمده مثل حج بيت الله الحرام حج كمده محا كلو كمده الجهاد والجهاد في سبيل الله جهادك إلهي جدكيسا كمده بالمال والنفس جهادك مركاد قليسو نفط هذين وكو بحينيسا يجركاغي مالنا وكاغا بحايا حجك مركا آديسو نفط هذين وكو بحينيسا مالنا وكاغا بحايا فوائد العبادات المفروضة ماشي waxaan ka galaynaa marka cibaadaadka adiga lagu waajibiyay faa'iidooyinkooda waa maxay faa'iidada laga helo cibaadooyinkii oo khaaska ah alcibaadaatu cibaadooyinku xaqu llaahi tacaala xaqi ilaahay ka mid yihiin calaa khalqihi addoommadiisa uu ku leeyahay walahaa fawaa'idu kahiira waxay leeyihiin faa'iido fara badan midhaha maxaa ka mid a marka salaadda aan soo qaadan marka fawaa'idu salaa salaadda faa'iidooyinkeeda maxaa ka mid a koow تشعر المسلم بمراقبة الله تعالى قفك مسلم كوحيد رنسيسا مراقبة الله تعالى وكاس إلهي إنه إلالنا يأمر وأركاي لابو تهذب الأخلاق أخلاق دي صلاة قفك أهجاجسا وتبعد المسلم عن المعاصي قفك مسلم كأنا محي كيف جيسا صلاة معاصي مروا البهداد دكانيسا دي إلهي إنه كل سعودة أركيسا وحكلوا أدكف جانيسا معاصي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صوم كما حي فائدة ديستا كو يعود المسلم صوم كقفك مسلم كأوحو عادة هان أبراء الصبر والطاعة لما شيء بصوم كلا قبرتا إن لبعض الله صبره إن إله أمر كيس لقات لأنه قاجة ممكن أصبر ريسا إن أنت لقيت قواد بدن تاي مركا واكاس لابو فائدة صوم كحكم ذا يجعل المسلم قفك مسلم كوحو كدقايا يشعر من دريمايا بمعاناة الفقراء لبعضها هيسته ضدك فقيرك marka adiga aad iska dharagsantahay iska haysatid gaajo badareemaysid laakiin marka aad gaajooto qofka maalin walba gaajada hayso aan waxba haysan aad fahmaysaa dhibku ku sugan yahay zakada faa'iidooyinkeeda maxaa ka mid ah tucawidu almuslima qofka muslimkay waxay bartaa oo caado uga dhigtaa cala alkarami wasakhaa labada eray waa isku mid deeqsinimada inuu xoolo bixiyo koow وحب الآخرين
dadka kalena uu jeclaado waxaa yeelay inaa adi keliga inaa u noolaatid naftaada lama rabo maalkaaga markaa bixiso deeqsinimadaad baranaysa saddex tasracu waxay abuurtaa mashaacira almaxabati bayna annaas dadku inay isjeclaadaan dareenka isjeclaanta ee dadka leanno markay kuwii wax la haystay lacagta haystay ee dadka aan lacagta haysan ay wax siiyaan way jeclaanayaan kuwii wax la siiyey kuwii wax siiyey laakiin haddii kale way dhacayaan tuugay ku noqonayaan meeshaas waa muhiim fawaa'id alxaj waxaa kuu soo hartay cibaadooyinkii gaarka ahaa ayaan ku jirnay xajka maxaa faa'iidadiisa ay tahay kow yasracu wuxuu dadka ku abuuraa oo ku beeraa ashucuura inay dareemaan bilmusaawaati inay siman yihiin bayna jamiici almuslimiin dadka oo dhan musaawaadkaas waa muhiim maxaa yeele xajka marka la tago ninkii madaxda ahaa kii maskiinka ahaa kii kulli isku dhara la qaadanaya laba go oo cadcad waa kaas ma la dhahayo kan waa ninkii madaxda ahaa isaga xoogaa jaakatiinkiisa soo qaato dadka inay siman yihiin labo yucamiq ashucuura wata'alufa bayna almuslimiin wuxuu xoojiyaa dareenka iyo isku hilowga ama isu soo dhawaashaha bayna almuslimiina muslimiinta yani dadka muslimiinta markay xajka wada yimaadaan waxa weeye oo wadamo badan ay ka yimaadaan oo midabo badan ay ku yimaadaan oo luuqado badan ay qofka muslimka wuxuu fahmayaa islaamku inuu yahay diin dad badan ay ku jiraan oo isku hal ilaah caabuday layliskii aan u nimi marka atadriibaat ujiib can alas'ilati alaatiya waxaan ka jawaabayaa su-aalaha soo socdo maa mafhuumu alcibaada cibaadada mafhuumkeeda waa maxay waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa oo la qaado bayin aqsaam alcibaada caddee qeybaha cibaadada marka mid guud iyo mid gaaraan u kala qaybinay markay maalka tahayna saddexaa loo qeybiyey maaliya badaniya iyo mid mushtarak ah maa hiya ahamiyat alcibaada maxay tahay cibaadada ahamiyaddeeda qofka ilaahay ku xidhaa waanu darsigan waa noogu jirtay afar udkur halaathan sheeg saddex min fawaa'id alcibaadaati almafruuda cibaadooyinka la waajibiyey ee saddex ka mida faa'iidooyinkooda sheeg marka faa'iidooyinka hadda aan soo sheegaynay faa'iidooyinka salaada faa'iidooyinka soonka faa'iidooyinka xajka aad soo tirinaysaa akmil alfaraaq bima yunaasibuha wixii aan darsigaan soo qaadanay weerihii ku jiray yaad dib ugu laaban markaasaad dhamaystiraysaa alcibaadatu hiya meeshaas banaan usoo biixi waqiila hiya tacriifkii cibaadada darsiga meeshii ugu horreysay ee lagu sheegay ayay ku jirtay adacu calaamata sax waxaan ku qorayaa calaamada sax amaama alcibaara saxiixa weedha saxdaa horteeda wa calaamata khada amaama alcibaara alkhaadi'a khaladna waa ku qorayaa weedha khaldan horteeda fii ma yaأti khalaqa allahu tacaala alinsaan ilaahay insaanku abuuray wa axsana khalqahu wuxuuna qurxiyey siduu u abuuray min ajli dunyaa adduun dartiisaana loo abuuray maya cibaadada loo abuuray waa qalad min khilaali labo min khilaali alcibaada cibaadada dhexdeeda markuu qofku ku jiro yatawaasalu linsaanu insaanku wuxuu xiriir la yeelanayaa maca khaaliqihi rabbigiisa abuuray buu xiriir la yeelanayaa duuna wujuudi wasaa'id ayadoon meesha aynay jirin wax ilaahay iyo addoonkiisa u dhexeeya maxaa yeele ilaahay toos baa loo caabuda annaga sida diimaha kale oo dadka lasii marmarayo ma aha diinta islaamka waxbaa ilaahay baad toos u baryaysaa toos baad ugu tukanaysaa markaad caabudaysa ilaahay waxa weeye xiriir baad la yeelanaysaa saddex min fawaa'idi zakaad zakada faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah annahaa tucawid almuslim qofka muslimka waxay caado uga dhigtaa ay bartaa cala albukli bakhaylnimada waa meesha lagu qaldaayo waa fiiri deeqsinimada ahayd wa xubi dunyaa adduunya jaceylka labadaasba ma aha cala sakhaa'i walkaram marka waa khalad sekada ma barto dadka bakhaylnimo maxay bartaa waxay bartaa deeqsinimo min fawaa'idi soom soomka faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah annahu yucawidu lmuslim qofka muslimku wuxuu caado uga dhigayaa barayaa cala asabri waadaaca sabirka iyo daacaduu barayaa waa sax marka iyadana asiluu bayna alcamuud alif walcamuud ba labadan tiir baan markaa isku aadinaynaa alif wixii ku hoos qoran iyo ba wixii ku hoos qoran min fawaa'id soom soomka faa'iidooyinkiisa maxaa ka mid ah waa ka haddaan soo sheegayna annahu yucawidu lmuslima cala asabri wadaaca marka halkaa waxa waaye lamber kow iyo waxa isku aadan muxuu ahaa iyo soomkaa isku aadaya marka
ها لمبركو يسونك اسكو هذه العبادة المشتركة بين المالية والبدنية عبادة مالك يجرك سوح ودحيس الله بدأ يسكول جرته محاكم ذا وحاكم ذا حجك حاكم ذا مركا وحوي أيضا هالكاس واحد جينيسا حجك جينيسا مركا للعبادة دور كبير عبادة وحي كان وين كل هذا هي في صلاح الفرد واستقامته هذه كرتا قفك إنه معنى إنه توصناده أي دور وين كوي ألان كرتا والعبادة الخاصة هي عبادة قارك أو حويان كل عبادة مفردة عبادة كسته أو مفروضة لفر ليالي من صلاة والصوم من خلال العبادة عبادة مركا تكون جرته أي يتواصل الإنسان إنسانك ومركا وحرير ليالي مع خالقه عز وجل النشاط لماذا أمرنا الله محو إلهي النوفر سبحانه وتعالى بعبادته عبادة ديسة محو النوفر إلهي سبحانه وتعالى درسي مركا أن halkaasuu noogu dhammaaday marka haddee waan soconnaa waa ogtihiin sanadkii waxaa sii socdaaba duruustiina waa sii badanayaan waxdadii labaad baa hadda dhammaanaysa marka duruusta intay cusub yihiin aad ha looga faa'iidaysto hana la soo muraajaceeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi